marka waxaan ku guulaysan maanta inaan u qaybino 250 kintaal oo bur ah iyo haaf iyo 250 cagadood oo saliida marka waxaan doonsiinay maamulkii degmada Luuq oo nagala joogo cali Ismaaciil sidaad aragtaan waxaan sugayaa waa dadkii maatada ahaa ee baahnaa wax weyn maaha waxani waa dadka kac laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay wax ka badan u soo siyaadiyo dadkan ilaahay uu baa u maqan iyo dadka jaaliyada dibadda gaar ahaan dadka waxaan la hadlayaa ka soo jeeda deegaankan gaar ahaan gobolka Gadood iyo Luuq inay dadkooda ilaa naxariis la ku soo eegaan oo ay iyagu u noqdaan dad u hadla ama ha weydiiyaan dawladda ku meel gaarka ah wax ay ku leeyihiin ama adduunka caalamka wax ay ku leeyihiin ha weydiiyaan raqba waa ku rageeda Soomaaliya oo dhan waa baahan tahay hay'adaha caalamiga ah waxaan u direynaa inay iyaguna dalkan soo gaaraan dal amaano weeye oo dadkoodii gacanta ku hayaan wax nabadgelyo xumi kama jiraan ilaa balad xawo ilaa waa soo marnay maanta geed weyne doolow oo aan hadda sii marayno waa nabadgelyo dadkii deegaanka lahaa baana gacanta ku hayay amaankuna waa soo yahay marka wax nabadgelyo xumi kama jiraan dalkiina soo tara u kaalaya dadkiina wax soo dir hadayna nidinku dalkiina soo dir dadka Soomaaliyeed baa la hadlaya gaar ahaan dadka gobolka soo jeeda cid wax taraysa ma jirto madiina waa soo baahan tahay waxaan waa dadka kac 3 habeen 4 habeen 5 habeen hadii wax lagu soo sameeyo wax ilaahay u baahan marka dadka reer Luuq iyo dadka Gadood dhammaan waa mahadsan yihiin si wanaagsan oo sharaf leh oo gobonimo oo lagu yaqaan noo soo dhaweeyeen waana dalkaygii baan joognaa anagu ma nihin dad ajnabiya waxaan ka codsanaynaa dadka hay'adaha wadaniga ah ee Soomaalida ee NGO-yada u shaqeeya in ay san u dhaqmin sida dadka ajnabiga ay u dhaqmaan cadaanka ama gaalada waayo iyagu waa dalkoodii waa inay wax loogu soo dhiibay si sharaf leh u soo gaarsiiyaan oo amaanadu waa qaali barina waa aakhiro maantana waa adduun in wax amaanada loo soo dhiibay sidii loogu soo dhiibay dadka ay saas oo kale u soo jeediyaan anigu lacagta waa soo dhiibi karay alaabta waa soo dhiibi karay waxa iiga qiimo weyn in aan arko dalka iyo dadku sidii ku nool yihiin halkaas aan waxaan uga yimid 15,000 oo mayl baan halka uga yimid inaan dadkaan wax ku nool yihiin arko marka waa mahadsantiin waxaan kaloo mahad celinaynaa telefishinka caalamiga Universal sida fiican uu dadka u gaarsiiyo dadka dibadda iyo gudaha isugu xidho una gaarsiiyo wixii baahiye ka jirta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa aad iyo aad baan mahadsantiin maanta هي بالكور بحي دافع ما أنت لو بدي قدوسي هذا أتي محمود قدوسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع ما أنت اللي قدوسي جاليد جديد سارت كارتو إنه كنتي إلهي بام حد إسكالة بسواد أركان وبابا كل كلنا بتقول يا كجرتو وحن كجدون ما أنت لا بقول يكون قيس عشان كود يسلي دودي نقل إلى ولالكي بشير حاج علي وكالصعدة هيدا إسكاردو سيدا درتاد وحدكم هاتسنتين تدكي باهيدا أي وقبين دلك إناد أركتين بروبلام كتاقرنا ودنكي أو نبديلا أي كجرتو هيديه عالمك والله ده ودنكي نبديلا مطهر waxaad arkaysaa nabadgelyada aad hadda ku timaadeen dalka waad arkaysaan madaxa oo laga soo bilaabo doono geedweyne iyo hadda Luuq joogno wadanka waa nabadgelyo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka ah in iyo NGO-yada in ay u keenaan dadkii caawimaad sida hay'adaha UN iyo matalaad hay'adaha samafalka oo kale maxalliga ahba sidaa darteed deeqda maanta waan gudoonay waxa kaloo mahadsan idaacadda Universal ee baa idinkaga mahad celinaynaa haddii dadkii waad aragtaan dadka muslimiinta ah oo mataqaanaa hadda ka hor waxa jirtay Hilal Foundation qolo la yiraahdo carabta nooga contribution way jirtay sida hay'adaha iyo local NGO-yada ay wixii la mid ah dadka wax baa soo gargaaray sidaa darteed hon relief hay'ad leeyahay lacag bixis ayadana way jirtaa ilaahay baa mahad iskale ummadii hadda xoogaha waxaad moodaa sidii hore roob baa u da'ay dadkii ninkii neefku ugu soo baxay xoolihii aad bay u fiican yihiin waxaan idin ka codsanaynaa dadka in la soo gaaro hay'adaha samafalka iyo mataqaanaa dadka dibida
oo ku sadaqaysanaya dadkooda wax intaba waxaan ka codsanaynaa inay dalka soo gaaraan aad baa u mahadsantihiin